وحفلة تاجرة حفلة دانا عاو وأنا كان اسكول نمد رمان بلشدة شرمالك كل نول قارهان مجالات موشن قول كباير وحنا نمد إن أسود وينو معمول قولات كقولات لها مدوب يقل جدود تاسو دولة الصومالية أي مجا عودي لبدي بيش أغسطس لبدي كوني عفر يتبنك بيش عالم كنا أقوانستي وحنا قرب تاجرنا هاي تاجر بوحدة كجالية دهان هذا جالية تشرب الكلام هاي دولة الصومالية هذه مهندسة هاي دلالة أي وضوء لبدات هديتها فدرالك يا هديتها دبوشيسينتا ما دام عندك قولات كسر شيلنا هاي وحنا تاجرنا دلالك iyo dibushiisiinta iyo maamul samaynta dadka ku howlan inay sakad daalin u dhamaan adeegan barnaamijkaas oo ay horay u galaan hadii alla idmo aysan macnaha maaragtay ka daalin aad iyo aad waa ogtihiin maamul iyo maamul aan farqiga u dhaxeeya aad u mahadsantihiin haddana waxaan kusoo dhaweynaynaa xiriirihii barnaamijka liimaan corona wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu barnaamijkeena ayaa haddana gudageli doona hadduu ilaahay raali ka noqdo kastoo caawa madax badan ay nala joogto oo barnaamijkana waqtigana uu nagu yaryahay waxaan isku dayaynaa inaan waqtigan ka faa'iidaysano oo dadka ay ka soo qayb galaan ee dadka dhammaan ay soo xaroodaan ay hoolka shirka soo galaan xafladan caawa si habsami leh ayay noogu dhacaysaa jadwal qurux badan ayaan soo diyaarsanay insha allah oo waana xafladii aan ku taageeraynay maamul samaynta gobolada dhexe ee Soomaaliya oo macnaha dowladda Soomaaliya ay soo magacowday iyadoo maamulka barnaamijka taageeradiisa jaaliyadaha dibadda ay iska xil saareen maantana haddaynu nahay jaaliyada ku nool Jarmalka gaar ahaan magaalada Munich ayaan xaflad aan ku taageeraynay aan u dhigno maamul samaynta caawana marti sharaf qaaliya iyo madaxdii dalka ka soo talisay dad badan oo magacii maamuus kule ayaa barnaamijka marti ku waxaan isku dayi doonaa inaan waqtiga ka faa'iidaysano insha Allah hadduu ilaahay raali ka noqdo anigoona barnaamijka kusii dheeraan doonin iyo tafaasiil ayaan waxaan kusoo dhaweyn doonaa wasiirkii hore ee dowladdii dhexe dowladda ku-meelgaarka Soomaaliya wasiirkii awqaafta iyo arrimaha diinta iyo wasiirkii cadaaladda Sheekh Cabdiraxmaan Janaqow ayaa khudbadda ku furi doono taageero Soomaaliya gobolada dhexe maamul in laga dhiso in la taageero qeexid waa intaas taas micnaheedu waxa weeye wax soo daahay oo haddana weli aan fari ka qodnayn oo la rabo in la baritaaro la yiraahdo war dhaqsada fadlaadeen ujeedkaas wanaagsan oo dadkii la dhiiri gelinayo annaga laftigeena saameyn bay nagu leedahay haddaan nahay dadka dibadaha jooga inay nagu leedahayna waa inaga ka hadlayna taasaa daliil ah ku dheeraan maayo jiritaan marka aan leeyahay waxaa jira waxyaabo dadku aysan aad ugu baraarugsanayn waxaa ka mid ah mas'alada maamul marka laga hadlaayo dadkeenan iyo dad nala mid way iska jiri karaan naf ahaan waa u noolaan karaan shakhsi waa u noolaan karaan qof walba inta ajashiisa ilaahay uu ka dhigay laakiin ka bulsho ahaan inay u noolaadaan way ka duwan tahay inay u noolaadaan qof markaan hoos ugu sii daadego macnahaas waxaan ula jeedaa meeshii aan maamul dadka joogaahay maamul ay ku midaysan yihiin oo matala oo maamula oo hogaamiya oo danahooda ka shaqeeya aan lahayn meeshaasi meel jirta ma aha dadkaasina dad nool ma aha waa laga yaabaa inaad ila yaabaysiin laakiin xaqiiqdu waa sidaas nolosha qof ahaaneed aad qof ahaan u nooshahay wax micnaa kuma dhisna waayo wax badan waxay kaaga xiran yihiin ummadda aad la nooshahay hadday yihiin sukeeye iyo hadday shisheeye yihiinba Soomaali haddaan isku nahay deegaan meel jooga ee aan maamul lahayn qof haysaga noolaadaano laakiin qola ahaan uma jiraan marka waxaan kusoo gabagabeynayaa walaalayaal haddii aan leenahay gobolada dhexe way la daaheen ha dhaqsadaan maamulka ha dhisaano dadkii u baahan yihiin annaguna aan ka mid nahay oo leenahay innagaa idin ka mid ah ayaana isla meel joogin laakiin waana naga mid annaguna iyagaan ka mid nahay oo dib u soo dhacday ayaa hadda khudbaddeeda inoo soo jeedinayso barnaamij yar oo ku saabsan qurbaha iyo dhibaatada ku haysato iyo macnaha maamulka ayay ka hadli doontaa fadlan ila soo dhaweeya sacabku waa xaggiina maamooyinka
soo maamulay meesha jacniyada isugu timi kulli horta waa wada salaamaya salaamta islaamka assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh walaalayaal waxaan ka mid ahay hooyooyinka u baahan gobolada dhexe ama Soomaaliyaba inay isku tirsan tahay oo nabad ka wada dhalato kolay waxaan hooyooyinka ugu horeeyay ee jecel waayo waxa kalifaya adal qurbo ugu dhibaato badan yahay oo wax yar hadda jooga iyo durbaba ay saameynayaan halka waxaan ku soo shubay ilmuhu waxay wata shacnigooda kuwii iga soo horeeyay kolay dhibaatada way arkeen walaalayaal waxaan u baahanaa horena aan ugu baahan hadaan hooyooyinka nahay ama aan aabaha wax keenaynahay dalkayga waxa naga keenay waa nabadda kolay anigu inay ka sheekayn maayo abayaal badan baa soo duulay wax nimankaygaas maanta ay ku dhinteen ma aqaano walaalayaal ilmihii ay dhaleen waxaan ku soo shubay ardalgaal waxaan maanta u baahana waxa weeye hadday dawlad tahay iyo hadday shibil tahay iyo hadday kuwa halka joogiyo kuwa xagga joogay war nabadda in loo dhiso ayaan aad u jecelahay si aan waddankayaga ugu noqono oo caruuraha yaga aan ugu dhalino waddanka war waxaan lahay markii hore gaajo kala soo carar jirtona dhib baan ugu keenaya dhala dheer ilaahay subxaanahu wa tacaala inta haysatana ha u badbaadiyo anigana hayla kala barqabto waxaan u soo jeedinayaa dadka nabadda jecel dhalinyarada dadka waa timaadeen waxaa laydinka rabaa lama huraan waa cawska jiilaan inaad waddankiina idinkoo dhalana qaadan bahasha dheerna cabin inaad waddankiina u tashataan wax kasto loo hirgelinayo in aanu hadda maamulada jiro ee faraxa badan leh kasoo qaad xibin yahay galmudug galgaduud maamulka caabudwa hardheer state mareeg state maamulo yaryaraa jiro oo shaqeeya ceelbuur ku dar maamuladaas yaryarka ah dadka jooga waxaanu ka codsanaynaa anagu codsiyaanu ku leenahay in ay fahmaan isu tanaasulaan dadka kale ee walaalahoodna u tanaasulaan si hal maamul dadkii dhan ay ku qancaan meeshana qabto oo u yimaado hadalkayga intaasa kusoo ekaana dad badan baa isugaayo waa salaamintii uguna talagalnay taageerada maamul samaynta gobolada dhexe ee mudug iyo galgaduud wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu aad iyo aad u mahadsantiin mar labaadna salaam kale iyo laba ayaan idin salaamayaa idinku dheerayn maayo maadaama waqtigu uu gabaabs yahay barnaamijkana inaan bedelno aan macnaha ku tala jirno maadaama dhalinyaradu ay macnaha maarata caawa aad iyo aad ugu heeloon yihiin barnaamijkan ka qayb qaadashadiisa waxaan doonayaa laba eray keliya inaan idin idhaahdo oo gubaabin ah dadka gobolada dhexe dhammaan waa lafdhabartii Soomaaliya haddaysan ayagu dhismina Soomaaliya ma dhismayso salaamayaa dhammaan
dhammaan jaaliyadda Soomaaliyeed soo qaban qaabisay xafladan qiimaha iyo qaayaha badan. waxaan kaloo salaamayaa ummadda Soomaaliyeed ee xafladan caawa ka soo qayb gashay. waxaan mahad gaar ah u celinayaa Ilaahay. waxaan mar labaad u celinayaa jaaliyadda gobolada dhexe ee xafladan soo abaabulay. waxaan salaamayaa madaxda Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan ama ha ila joogeen ama ha iga maqnaadeen. waxaan doonayaa in aan ka hadlo waxa yar taabto waxay tahay wanaaga, midnimada, maslaxada iyo dhibaatada koox-kooxaysigu uu leeyahay.
laga duuduubay inkastoo saaxiibka ka codsaday inuu duubo haddana ma jecleen waxaan kaliya usoo istaagay inaan horta oon u mahadnaqo dhalinyarada iyo dadka mataqaanaa xafladda quruxda badan ee weli sidaan oo kale magaaladan ooga dhicin awal horeeto anaa kamid ah dadkii dhigi jiray biyo cad baan dadka siin jiray laakiin caawa waxaan u imaada meesha liima sheegi waa soo cashay haddaan lii sheegi lahaa ma soo casheen waxaan mataqaanaa dadka meesha isla dhigay dadka meesha oo mataqaanaa xafladda dhigay magacyadooda kor kamooda ayaa haddaan iloobo mataqaanaa kulleyba hal qof baan ka garanayaa meeshan waana saaxiibkay oo cabdullaahi dheere ku magac dheer inkastoo magac saddexdii magacii sheegay haddana waa iloobo cabdullaahi dheere ogaas waxaan kaloo mataqaanaa rabaa dhalinyarada magaalada degan aad bay iskugu duuban yihiin waa dad isjecel nagu cusub qurbaha nagu cusub dadka annagoo dhan meeshan hadda joogo dhan waa dad ood kusoo galay iyo dirishadan kasoo galay marka taas waa problemka nala yaabin hadda arta annagoo sahaysano anala yaabin fadhi kudirirka waxa keenna waxaa waaye in la sheekaysto midda kale waxaan kusoo laabanaa xafladda ma raba inaan microphone ku dheeraado waxaan mataqaanaa rabaa inaan kusoo dhaweeyo gobolkan cusub foosha aan weli ma dhalaniisaan maqlay caloosha ku jiraan 9 bilood waaye ilaahay waxaan waa ka tahay nabadkeena waa gobolkan waa gobol mataqaanaa already la bilaabay inay mataqaanaa la sameeyo waan taageersannahay wixii ka soo baxana waan taageersannahay in badan baa la yidhi islama tashanin kan waa laga wada tashtay halkan caawa waxaa lagu soo gabagabeeyey xaflad aad u wanaagsan oo loo sameeyey soo dhaweynta mudug iyo galgaduud oo ay ku dhawaaqday dowladda federaalka ee Soomaaliya TV-ga caalamiga ah Universal TV Cabdirashiid Cali Maalin Munshin Germany